xubinteena ciyaarahana waxaan ku soo qaadanaynaa oo warka ugu weyn dunida kubadda cagtana noqonaya laacibka lagu magacaabo Eden Hazard oo waqti xaadirka kan loo ogolaaday in uu ku biiro kooxda Real Madrid waana qayb kamida riyo ku dhaxnool laacibka reer Belgium ee lagu magacaabo Eden Hazard kooxda Real Madrid ayana rajaynaysa in Eden Hazard ay la soo wareegto marka la gaaro 3 bisha June oo ku aadan isniinta soo aadan wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in kooxda Real waqti xaadirka kan ay u diyaar garoobayso sidii ay u soo dhaweyn lahayd laacibka reer Belgium ee lagu magacaabo Eden Hazard tababaraha cusub ee kooxda Inter Milan ee lagu magacaabo Antonio Conte ayaa waqti xaadirka kan isagana wuxuu bilaabay in uu ka kaluumaysto suuqyada kala iibsiga ciyaartooyda wuxuuna diiradda goobaad uu saaranaya laacibka weerarka ugu ciyaara kooxda Manchester United ee Romelu Lukaku kaasi oo qalcadu Old Trafford looga nacay sabab la xiriira in uu yahay ciyaariyaan iska fadhiid ah Antonio Conte ayaa sidoo kale wuxuu diiradda saaranaya laacibka weerarka ugu ciyaara kooxda AS Roma ee lagu magacaabo Edin Dzeko waxa kale wararka caawa la hadal hayo qayb ka noqonaya kooxda Atletico Madrid ayaa si la yaab leh waxa ay ugu dhaqaaqday saxiixa laacibka difaaca ugu ciyaara Leicester City ee lagu magacaabo Ben Chilwell waxaana ay ku doonayaan aduun lacageed gaaraya 80 milyan oo euro waxa kale wararka caawa qayb ka noqonaya kooxda Manchester United ayaa si aada waxay u xiiseynaysaa laacibka kooxda Bayern Munich amaahda ku jooga ee lagu magacaabo James Rodriguez waana dhacdada ugu weyn ee United ay ka sameyn karto xagga suuqyada kala iibsiga ciyaartooyda sidoo kale wararka caawa waxa soo raacaya ee sida aadka ah loo hadal hayo ciyaaryaanka lagu magacaabo Juan Manuel Mata ayaa isaguna waxa uu ku wajahan yahay kooxda caanka ah ee lagu magacaabo Barcelona caawa wararka waxa kale qayb ka noqonaya ama si weyn loo hadal haya oo dunida dhan ba isla dhaxmaraysa laacibka u ciyaara kooxda Arsenal ee lagu magacaabo Mesut Ozil ayaa isaguna si la yaab leh wuxuu diiradda ugu koray kooxda lagu magacaabo Juventus waana dhacdo kale oo gulgashay xagga suuqa kala iibsiga ciyaartooyda xubintii ciyaaraha